kulanti wanaagsan asxaabta qiimaha iyo qaayaha naga mudan ee ku xiran bartan YouTube-ka Idaaja Media ku soo dhawow mar kale muuqaal cusub oo aan uga hadli doono afarta dal ee ugu faqrisan adduunka oo dhan kuwaasoo intoodiiba ku yaala qaaradda tan Afrika waa qaaradda labaad ee dunida ugu weyn sidoo kalena waa isla qaaradda labaad ee ugu dadka badan Afrika waa qaarad leh aqoon-yahano tiro badan balse nasiib daro haddana waa qaaradda jahliga dunida ugu badan uu yaallo sababtoo ah dadkeedii aqoonta lahaa waxa ay ka shaqaystaan waddamada horumaray Afrika waa qaarad leh xaddi roobaad ee ku habboon beerashada carro ku habboon qodaalka sidoo kalena hesha 12 bilood adceed ku filan balse haddana waa qaaradda ugu wax soo saarka yar Afrika waa qaaradda ugu macdanaha iyo kheyraadka badan haddana waa qaaradda in ka badan kala bar dadkeedii ay ku nool yihiin faqiirtinimo kuwaasoo ku nool wax ka yar $2 maalintii Afrika waa qaaradda laga helo dhammaan noocyada daawooyinka kala duwan balse haddana waa qaaradda ay ka jiraan dhammaan noocyada cudurrada loo yaqaano haddaba markaan xoogahaasi ka soo gudbo waxaan dul istaagi doonnaa 4 dal ee ku yaala qaaradda Afrika kuwaasoo lagu tiriyey kuwa ugu faqrisan ee adduunka ku yaala haddaad nagu cusub tahay fadlan subscribe oo asxaabtaadii ku sheer garee dalka koobaad waa dalka Niger waa dal ku yaala galbeedka Afrika wuxuuna safka hore kaga jiraa wadamada la ildaran saboolnimada iyadoo Niger ay ugu sareyso warbixinta qaramada midoobay ee horumarinta aadanaha oo ah wadanka ugu saboolsan adduunka halka xogta bangiga adduunka ee sanadkan ay muujinayso in dadka reer Niger ay ka hooseeyaan xariiqda saboolnimada qubarada ayaa arintan u aaneynaya dhowr sababood sida faafidda howlgallada argagixisada isbeddelka cimilada kororka tirada dadka iyo faafidda cudurrada sida duumada marka lagu daro adeegyada caafimaadka oo liita iyo kaabayaasha dhaqaalaha dalkaas oo meeshii ugu hooseysay gaaray dalka labaad waa Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe waxaa lagu tiriyaa wadanka ugu gaajaysan adduunka Jamhuuriyadda Bartamaha Afrika ayaa ah wadanka kaliya ee qiimeeya heerarka gaajada qaramada midoobay waxay muujinaysaa in celceliska cimriga qofka ee Jamhuuriyadda Bartamaha Afrika uusan ka badnayn 52 sano maadaama in ka badan 62% dadka ku nool Bartamaha Afrika ay ku nool yihiin meel ka hooseysa heerka saboolnimada Afrikada Dhexe waxay la daalaa-dhacaysaa khilaafyo diimeed iyo dagaalo qowmiyadeed waxayna leedahay mid ka mid ah heerarka ugu sareeya ee dhimashada carruurta adduunka dalka saddexaad waa Koonfurta Suudaan waxay xornimadeedii qaadatay July 2011 laakiin waxay in badan la dhibaatoonayaan dagaalo joogto ah oo saameyn ku yeeshay ilaa iyo 2016 warbixinadii ugu dambeeyay ee bangiga adduunka waxay tilmaamayaan in ka badan 82% dadka ku nool Koonfurta Suudaan inay la ildaran yihiin saboolnimo joogto ah waana sababta keentay in 2 milyan oo qaxooti ah oo ka yimid Koonfurta Suudaan ay ku nool yihiin dalka dibadiisa mana jirin qorshe cad ee ay la timid dawladda dalkaasi ka jirta oo muujinaysa inay ka hortagaan saboolnimada baahsan ee saameynta ku yeelatay dadkaasi dalka afraad waa dalka Chad waa mid ka mid ah dalalka saameynta weyn uu ku yeeshay saboolnimada sababa la xiriira kaabayaasha dhaqaalaha dalkaas oo aad u liita khilaafaadka gudaha dalka ka jira oo joogto ah marka lagu daro isbeddelka cimilada waxaana aad u liita dhaqaalaha maalinlaha ah ee soo gala dadka dalkaasi ku nool waana sababta keentay in dalka Chad lagu daro wadamada ugu faqrisan adduunka oo dhan ugu dambeyntii waxaan halkaa ku soo koobayaa muuqaalkan qiimaha leh ee aan uga hadlaynay 4 dal ee adduunka ugu faqrisan inta aan ku kulmayno barnaamijka xiga Idaaja oo idin leh sidaas nabadgelyo